madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Dr. Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxa uu maanta kormeer ku sameeyay dhowr xarumood oo la soo gabagabeeyay dhismo ka soconayay waxaana uu socod dheer ku maray qaybo kamid ah goobaha la soo gabagabeeyay dhismahooda waxaana kamid ah xarunta waxbarashada gobolka Galgaduud oo iyada dhismo casri ah lagu sameeyay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Dr. Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa mid u galay qolalka ay ka kooban tahay xarunta waxbarashada gobolka waxaana uu mahad celiyay kambaniga Daldis oo isagu ku howlanaa dhismaha xaruntan madaxa xukuumadda ayaa waxa uu sheegay in xaruntan ay qayb weyn ka qaadan doonto horumarka waxbarasho ee gobolka Galgaduud iyo guud ahaanba deegaanada Galmudug waxaana ay ka mid ahayd xarumo uu horay u dhagax dhigay madaxa xukuumadda Galmudug xarunta waxbarashada gobolka Galgaduud oo horay u ahayd mid aad u burbursaneed ayaa hadda u muuqata xarun dhismo casri ah la galiyay waxaana xaruntan ay burbursaneed 27 sano ee dalku burburka ku jiray dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa waxa uu maalmihii la soo dhaafay ku howlanaa horumarinta goobaha waxbarasho ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa waxa ka soconaya dhismaha loo sameeyo dhammaan xarumihii ay ku shaqeyn lahaayeen hay'adaha dawliga dhanka kale madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Dr. Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa booqday goobaha lagu xanaaneeyo carruurta agoonta kuwaasi oo ku yaala magaalada Dhuusamareeb madaxa xukuumadda oo ku urgalayay qaabka wax loo baro carruurtan iyo waliba sidoo kale sida ay tahay noloshoodu ayaa u gacan qaaday dhammaanba carruurtii ku sugnaa goobaha uu booqday madaxa xukuumadda Galmudug ayaa carruurta kala sheekaystay qaabka wanaagsan ay wax u bartaan iyo waliba sida ay macallimiintu la dhaqmaan madaxa xukuumadda ayaa u mahad celiyay dhammaanba macallimiinta ku howlan waxbarista carruurtan iyadoona uu sheegay inuu markaasi maamulka Galmudug uu garab taagan yahay sidii wax loo bari lahaa carruurtan goobahan uu booqday madaxa xukuumadda ee ah goobaha wax lagu baro carruurta agoonta ayaa dhammaantoodba ah carruurtii aabayaashood ku waayay dagaaladii lala galay kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab sidoo kale madaxa xukuumadda Galmudug Dr. Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa macallimiinta ka wareystay qaabka ay wax u baraan carruurta agoonta waxaana macallimiintu ay sheegeen in carruurta ay tahay xaaladoodu mid wanaagsan isla markaana ay macallimiintu ku howlan yihiin sidii ay ugu dadaali lahaayeen horumarka iyo waxbarashada carruurtan madaxa xukuumadda ayaa inta badan diiradda saara wax u qabashada dadka danta yar iyo carruurta aabayaashooda ay ku shahideen dagaaladii lala galay kooxaha nabadiidka maalmihii la soo dhaafay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa waxa uu kormeero ku sameeyay goobo kala duwan oo ay wax ku bartaan carruurta agoonta ee ku xareysan deegaano iyo degmooyin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xaashi Cabdi wararka xukuumadda Galmudug TV Dhuusamareeb